dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay dagaal qaraadh oo maanta ku dhex maray Jamhuuriyadda Jabuuti ciidamada daacadda u ah kaliditaliska Ismaaciil Cumar Geelle isaga xukunkaasi muddada dheer haystay iyo jabhadda dib u xoreynta Jamhuuriyadda Jabuuti waa jabhadda furuudka ama jabhadda canfarta oo dagaal qaraadh dhex maray ayaa waxa dagaalkaasi ka dhashay khasaare ba'an oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana lagu qiyaasay ilaa hadda inta la og yahay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 12 ciidan waxaana halkaas ku nafwaayay in ka badan 12 ka tirsan ciidamada daacadda u ah Ismaaciil Cumar Geelle ama ciidamada Jabuuti halka tiro badan oo inta ka badanna ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxa ciidamadani dib u xoreynta Jabuuti ee jabhadda furuudka ama jabhadda canfartu ay la wareegeen deegaano hor leh oo iyagu gacanta hadda ku hayaan iyadoo haddaba muddooyinkii ugu dambeysay ay socdaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo lagaga hortagayo kaliditaliska Jamhuuriyaddaasi Jabuuti muddada 25 sanadood ka badan isagoo halkaasi xurtada ku haystay isla markaasina dalkaasi muddada dheer gacanta ku hayay waxaynu oran karnaa haddii aad hore u maqli jirtay gugii carabta ayaa bilowday hadda waxa bilaabmay gugii wax iska xoreynta Jamhuuriyadda Jabuuti ama shacbiga reer Jabuuti ay iskaga xoreyn lahaayeen kaliditaliska Jamhuuriyaddaasi Jabuuti waa Ismaaciil Cumar Geelle waxaana ugu yaraan ilaa hadda inta aynu xogaha iyo wararka ku helayno dagaalkan isaga dhex maray jabhadda wax iska xoreynta ee canfarta ee Jamhuuriyaddaasi Jabuuti ay ku dileen ugu yaraan 12 askari oo ka tirsan ciidamada waddankaasi Jabuuti oo iyagu ku geeriyooday kadib markii fariisimo ay leeyihiin ay weerar ku soo qaadeen jabhadda canfarta ee mucaaridka dalkaasi Jabuuti sidoo kalena waxa warar ku tilmaamayaan isla markaasina sheegayaan in askarta daacadda u ah kaliditaliska Ismaaciil Cumar Geelle lagu dhaawacay isla markaana ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi oo ka dhacay deegaanka garabtiisa sidoo kalena waxa lagu soo waramayaa in jabhadani dib u xoreynta Jamhuuriyadda Jabuuti ee furuudku waa jabhadani canfarta ah ay gacanta ku hayaan maxaabiis hor leh oo ay ka qabqabteen ciidamada daacadda u ah kaliditaliska Jamhuuriyaddaasi Jabuuti ama Ismaaciil Cumar Geelle iyadoo ay soo bandhigeen qaar ka mid ah maxaabiistii gacanta lagu dhigay haddaba waa kan mid ka mid ah isagu maxaabiista gacanta lagu dhigay ee dagaalkaasi ay maanta ku qabteen jabhadda dib u xoreynta Jamhuuriyadda Jabuuti waxaanu maxbuuskani laga qabtay ciidamada Jabuuti oo hadlay uu yiri sidani imaka waxa la hadlaya faamigeyga oo ugu horeyso hooyaday waxa leeyahay hooyaday waa iska fiicanahay caafimaadkaygu wuu fiican yahay waxa la jooga rag la yiraahdo fuud markaas hooyay adu ma garanaysid laakiin talabaadna waxa salaamay islaantayda Khadiija Xasan iyo awlaadeedo dhan waxa leeyahay oo u sheegaya waxbana niyada iska dilina waxbana isciil badina waa iska noolahay waa fiicanahay waxa la joognaa rag la yiraahdo magaciisa furuudna waxa weeji Front Restauration Union Démocrate balera waa rag walaalahayna yaa la joognaa oo gacanta lagu haya waxa ay ku cunaan baa cunaa meesha seexdaan baa seexanaa waxa ba yaraatay ee dib iyo dhibaato ay noo geystaan ma jirto waxa leeyahay hooyaday oorideydii iyo ciyaarkaygiiba waxa leeyahay iyo walaalahayba waxa leeyahay waxbana niyada iska dilina waxbana ooyina waxbana caroolina waxbana isciil badina waxa leeyahay waa iska fiicanahay sideestadina ay ka nagu xiran tahay wax kasta waa helnaa hadda waxaan soo dirtiina waa heli doonaa hadda message ama waraqadana qorno waa heli doontiin waxaan rajaynaynaa insha Allah inay sii daayaan laakiin waxaan ugu dardaarmayaa hooyaday oorideedii walaalahay iyo awlaadeedaba inay isdibaan isciil badan ama wax isku geystaan dhibaato isku geystaan ma doonayo marka waxa leeyahay waa iska fiicanahay ilaahay baa naga wanaagsan waxa rajaynaynaa insha Allah inay sii daayaan laakiin isciil badina والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته si kastaba ahaatee mucaaradka Jabuuti ee iyaguna ku sugan dalka dibadiisa ayaa tilmaamay in maanta la gaadhay xilligii la iska kicin lahaa kaliditaliya Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukunkiisa oo muddo dheer shacbiga reer Jabuuti xoog ku haystay isla markaana ay hadda bilow tahay iyagoo hambeliyay jabhadani dib u xoreynta furuudku dagaalkani baan ee ay maanta jabka ku gaarsiiyeen ciidamada daacadda u ah Ismaaciil Cumar Geelle waxa kale oo ay xuseen in iyaguna sidoo kale ay soo gali doonaan dagaalka isla mar ahaantaasina
ay muddo dhow la wareegi doonaan xukunka talada dalkaasi jamhuuriyadda Jabuuti. daawadayaal like and share soo follow page-keena Maxamed Jubba wixii dambe war ka soo kordhana waxaad kala socon doontaa warbaahinteena Maxamed Jubba Media. waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Jubba warbaahinta Jubba Media.